waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo ummadda Soomaaliyeed oo wixii dhageysanaya ama daawanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxa weeye maalintii loo asteeyay haweenka adduunka waxaan rabaa marka maalinta munaasabadeeda inaan ugu hambaliyeeyo salaan iyo hambaliyoon u diro dhammaan haweenweynaha adduunka gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed oo hadda adduunka kamid ah oo wax ka qaybsanaya maalinkan dabaaldegideeda waxay ila tahay adduunka dadka ku nool iyo bulshooyinka ku nool qolo walba maalinka dhalinyarada maalinka hooyooyinka maalinka aabayaasha maalinka wax bini aadamku waxba qolo walba asteysatay marka 8 Maarso bardu taariikhdeeda hadda Google-ka wax walba noo sahlo inta badan dadku way akhriyeen waxay ka timid dagaalkii maxay koobaad iyo kii labaad adduunka markay dhamaadeen haween shaqeynayay dib ay ka cabanayeen waqti dhuma waa waqtigaas waqti aad u fog buu ahaa laakiin waxa ay ka tageen baa la sii nool guli hadii ra'yiga iyo fikradda fiican oo la sameeyo hadii hore loo qaado ay waxtar dadku u tahay waa sii noolaataa marka haweenkaas sameeyay waana ka gaareen cabashadoodii waxay ka cabanayeen markaas la asteeyay in maalin u gaar loo sameeyo dumarka adduunka oo madira 8 Maarso qolo walba marka waxay ku dabaaldegaysaa duruufaheeda iyo maxay tahay culture-keeda iyo nidaamkeeda team guud oo international oo UN ku soo saarana waa jirtaa qolo walbaana waxay ku samaysataa waxeedii iyada ay howlahooda qabsanaysay marka shalay waxay ila tahay anagu waxaan horta bilownay dabaaldegida markii dawladdu ay joogtay dawladeedii naga burburtay dawladda maalin ay u ahayd astaamaysan oo loo dabaaldego kadib anagu markaan bilownay shaqooyinkan 92giiba horaan ka qabanay inaan maalinka haweenka iyadoo aan nabad jirin oo waxba jirin oo waxaan ku bilownay guryahayaga inaan inta isugu nimaadno aan maalinkaas aan u dabaaldegno anagoo isticmaalayno media ay noo ahayd BBC-dana waa joogeen wiilal baa shaqeynayay runtii rag badanoo qaarna dhintay qaarna nool oo nala shaqeynay halkaan nala joogay joornaaladiina waa adeegsan jirnay xogogaal iyo qaran iyo joornaaladii soo bixi jiray anagoo tusinayna adduunka inaan wali nool nahay oo aan la soconno mar haday dawladda naga burburtay mar haddii sharciga burburay mar haddii communication uusan jirin haddana wixii yaraayo aan haysanay ma aanan lumin waa isticmaalnay oo adduunka waa la xiriirnay inaan maxay maalinkaas aan sameeyno alxamdulillah waqtigaas ilaa maanta siyaalo ka digdisan iyo waqtiyaal kala gedisan iyo goobo kala gedisan baan ku sameeynay marka aanu imaado midii aan shalay la sameeyay maanta ururka SWC ayaa gaar sidiisa caadiga u sameystay laakiin midii shalay waxay ahayd taariikhda midii ugu horeysay oo la isugu yimaado oo munaasabad noocaas ah loogu sameeyo runtii ma hadda Ilaahay baa iska leh laakiin dawladda Prime Minister Xamsa iyo wasiiradda haweenka iyo maxay qoyska iyo xuquuqul aadanaha oo ugu hambaliyeenaya shaqadii badneyd oo ay keliyeen gaar ahaan wasiiraddu waa iyadoo la tashanayso way noo timid haweenka ka ururada bulshada oo maxay tarayidka ama haweenka organisationadu waxa waaye waa kala qaybsanayno qaarna waxa la yiraahdaa rag baa hogaamiye qaarna waxa la yiraahdaa women led organizations dumarkayagii intoodii badneyd wayna la tashatay barnaamij baa marka la sameeyay 1 ilaa 8 shalay aha oo taxana ah runtii aad bay gabdhaha u shaqeeyeen 1 ilaa 8 shalay la soo gaarayay haddana waxay kaga gadisneed ma aanan qabin anagu nidaamka ah inaan anagu lama soo gaarin aan iraado lama soo gaarin inaan gudahayaga iska abaal marino qofkii Soomaaliyeed oo wax fiican qabta banaanka laga abaal mariyo adduunka caalamka hadda waa guri lagu wada jiro wada isu jeedaan shalay marka waxaa noo suurta gashay
إن الأعمال مريو قفك ومتناد تي قبلها دروا وذمذيهن لكن هدي امتحان لقالوا قفنا نمبر 1 بوقلها قف نمبر 2 قف نمبر 3 قفك نمبر 1 وقالي أرماها وين كي يستاجدوا oo beeshii lixaad u ahaa gudoomiyaha ayaa la casuumay loo yeeray wasiirada way aqbashay casuumaad loo fidiyay shalana meesha bilad baa lagu gudoonsiiyay annaga urur ahaan hadaan nahay ururkii ay gudoomiyaha u ahayd SSWC oo ku faraxsanahay maxaa yeelay gudoomiyaha waxay noo soo haysay bilad inay hesho waan ugu hambalyeynaa ilaahayna waxaan uga rajaynaynaa عمر داري عافماد عبادة سبحان إنه سيو دولة إيو محيط وزيرة إيو برام منستر كإيو dadka Soomaaliyeed dhamaantoodna waa ugu hambalyeynaa markaan intaas ka tago maxay tahay maxaa la soo maray maxaa noo dhiman maxaan rabnaa inaan qabano haweenka Soomaaliyeed runtii shalay si fiican oo qurux badan ayaa prime ministerku u dhigay emotional buu noqday markuu ka hadlayay qof kastoo wadna laho hooyo koriso hooyadii jecel wixii ku dhici lahaa shal prime minister dadkii oo dhan hoolku ku jiray inta badneed waa wada oyday marka uu sheegay wuxuu yiri halaga raali ahaado haweenka dhib badan baa lagu hayaa loo geeyay oo ragga xaqooda uga timid marka raali aanshiina waa qaadanay laakiin waxaan rabnaa in ragayagu dadku markii dawladnimadii ay dhacday jahwareer badan baa dalka iyo dadku ku dhaco la soo maray mas'uuliyado badan baa dayacmay oo haweenkii iyo caruurtii iyo raggii waa shaqo waayeen meel la aadaa la waayay hooyadii marka iyadoon loogu talagelin bay waxay automatically waxay ugu timid inay noqoto qoysku qofku cunada u raadinayay oo halka intay fariishaha soo gado oo maxay qudaar gado oo neef qasho oo halka ilmihii iyo quudka ay ka raadisay marba meel baa la joogay mar waxaa jirta aan la haysan cunada kaliya lagu mitiday xataa dugsiyadu ay gabaabsi naga galeen markii dib iskool baa noo furmay jaamacad baan gaarnay alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka dhibkaas markuu dhacay dumarkii intii aqoonta markaas ka faa'iideysato ama jaamacadaha ka baxday ama dawladda u shaqeynaysay dadkii wixii aan qaxin oo hadda nasiibka u helay dalka inuu ku haraan ama qaarkii banaanka tagay waxa in la go'aansada bal wixii la qaban karo in la qabto waxyaalaha dawladnimada lagu keeno ku timid ma sahlaneyn qof walba hada taariikhdu ayada isqorta waxaa dalkii warlooraa ka samaysmay dhibaato ka dhacday sidii loo kala xoog badnaaba la isku xukumay waxaan noo soo baxday marka inaan u baahanahay waxaan xoog ahayn oo la isku xukumay in la raadiyo oo loo laabto maadaama aan soo aragnay dawladnimadii hadda dad yaryar oo waxaa jira ku koray dagaalkii ku indha kala qaado markii laga hadlo ayba u sahlan tahay laakiin qofkii dawladnimo soo arkay xanuun bay ku leedahay war waxaan sidaan si ka gadisan hal raadiyaa la yiri oo dawladnimada la soo celiyo nasiib wanaag dad badan oo dawladdiyaha noolaa oo joogay markaas carta lagu gabagabay oo la isugu tagay carta marka dawladii u horeysay laga taagay udubkii laga taagay dawladnimadii labaad ee Soomaaliya marka ma sahlanayn dad aan ku aadanaan isfahmi karin aad inta la nooshahay aad waxaysan fahmi karin inaad ku dhexraadisaa aad isku daydo oo ah nin qabiilaho qori haysto halkaas joogo inuu wax dilo ay u sahlan tahay marka tira war qorigaan dhig oo waxayaan la dilin dadka la mid noqo waa ku adag tahay marka dhib badan baan soo marnay mararka qaarkood markaan fiiriyo sidii riskigaas aan ugu diyaar garownay waa naxaa because markii la weynaadaba nafta waa la sii jeclaada dhalinyaro aan ahayn markaas waa la waxaynahay caasho waxay ka mid ahayd dadkii marka saa u shaqeynayay iyadana noo hoggaan noogu ayadii gabdho kale qaarna nool yahay marka waa ugu mahadinaynaa waana ugu hambalyeynaa waxaan rabaa marka inaan gadaal ugu soo laabto dawladnimada dhibkaas laga soo maray waxay u baahan tahay marka dhib wixii laga soo maray in dhibka dheefta waxa la dhihi jiray dheefay
raadiyaa laga qaadi jiray dheefey hee xagee joogta dhib baa iga sokeeya marka dowladnimada hadda aan raadinayno oo aan hadda haysano haddaanan u dhibtoono aan la shaqeyno aan la kala amar qaadano ma jiraysa mana soconayso waa inaan marka dowladnimada loo wada shaqeeyo dowladnimada qof iskama dadka iskale marka ma ahayn haweenka wixii loo dhisayeen ka shaqeynaynay inay siyaasadda ka qayb galaan kaliya ma ahayn haweenkii markii ay ganacsigu u soo baxeen wixii waa yar yihiin waa dhammaanayeen in la empower gareeyo oo sidii loo ganacsadana la baro waxna loo saa'iidiyo waa ka shaqeynay haweenkii ku jiray xeryaha barakaca dhib bay la kulmaan protection inay helaan oo dhib baa kufsaa ka dhaca dil baa ka dhaca dhibaatooyin badan baa ka dhaca inaan iyagana waxaan isbitaal geyn karno waxa aan ku qaban karno inaan u shaqeyno waa ku jirta waa package isku xiran oo haweenka ama ha loo sameeyo caafimaad ama ha loo sameeyo noloshooda qoys hala kabo ama ha loo sameeyo markii tacadigu ku dhaco sidii loo mar labaad ugu soo laabanayo qofka markii la kufsado oo dhibkaas uu ku dhaco taqarrab badan baa qalbiga ka gaaraya daaweyn iyo wuxuu sheegid iyo waxyaalo badan baan isku darnaa in haweenkii wax la baro oo gabdho waxaa jira aan u helin nasiib inay iskooladii ay bartaan oo markii u horeyso hadda waa la dhibtoonaa waxa yar ciddu markay hesho wiilashaa la siin jiray gabdho badanoo marka aan u sameynay secretariat inay bartaano kombiyuutarka bartaano aan wax barno waa ku wixii hadba ay tabaru tahay waxaan rabnaa inaan gabdhihii ugala shaqeyno waxaan u maleynayaa ilaa iyo hadda centerka waxaan annagaa 2 jeer bilownay center aan ku noogu yilay baar ubax oo dadka intii taqaana ay arki jireen waxaan u sameyn jirnay waxyaalo komponentiyaal kala gedisan qaybo kala gedisan oo ama waxbarashada kombiyuutarkii harqaankii sida cuntada loo kariyo sida iclaanka loo saaro markii amxaaruhu dalka ay timid 2006kii ayuu burburay mar labaad baan 2011kii mid sameynay labaad marka from 2011kii ilaa iyo hadda dadka ka faa'iiday oo waxaan u maleynayaa haddaanan qaldanayn ka waxa kala gedisan bartay ilaa 3,000 inay gaarayaan oo gabdhood oo hooyooyina oo kuwa agoon haysta ah wixii wax ka bartay wixii successful noqday waa gaarkooda oo dadka 2 qof wada iskool wada dhigan jirta qofna uu noqonayo professor qofna meel dhex ku harayo qofba meel kuma qasbanid adigu meeshaad rabtid inaad wax geyso meeshii alla wax geeya wax tagay marka anagu waxaan la daba taagneen oo nafteedii iyo u hurnay waqtigeega aan gelinay dalkayga iyo dadkayga inaan ka tagin oo u shaqeyno alxamdulillah rabbil caalamiin waana ku guuleysanay waxaan naga go'an hadii alla yiraahdo inta cimriga nooga hartay ilaahay baa og ilaahay cimri dheer iyo cibaado subhanahu siiyo inaan dalka iyo dadka u shaqeyno waxaan rabaa inaan ka hadlo oo ku darsado hadalkayga waxaa jira dagaal sokeeyo oo soo noqnoqonahay anagu hadaan dadka xamar jooganahay hadda degan aad iyo aad baa baxayt looga dhirgay xamar dagaalka danagama kor kacaba nin baa wuxuu yiraahday waliga abeeso ma inta afkaba meega qaadaa buu yiri afkaba meega qaadaa marka ilaahayna waa nagu badbaadiyay laakiin dib badan baa yaal marka meelihii nabdoona oo loo qaxayo haday dib dhacaan la aadahay in dib ka dhacaan anagu ma rabno waxaan rabnaa dagaalada sokeeyo oo socda in la joojiyo sida ugu nabdoona ugu xasiloona in loo heshiiyo oo looga gaaro heshiis markii aad dad xukunto oo ama aad wax u tahay ama madaxweyne oo aho ama prime minister oo aho ama nabadoon oo aho ama ugaas oo aho ama suldaan oo aho hadiiba adiga awood gacantaada ilaahay galiyo waxa la iska rabaa in dulqaad badan iyo tanasulaad badan iyo samir badan in la muujiyo oo dadka loo muujiyo tusaale ahaan anagu dad muslimiinaha nahay rasuulkeena maxamed alayhi salaatu wasalaam sulhu xudaydiya waxa lagu sameeyay heshiiskaas dhibka ugu badnaa rasuulka loogu geystay hadana waa u qaat iyadoo asxaabtii inay dhib ka dhex dhaco wuxuu u qaatay barwaaqo ka badan baa uga dambeysay ilaahay baa u waxyooday
samirka marka waxaana la tusayaa in qofku markuu mas'uul yahay ama in la samir la qaataa la rabaa markaad xanaaqdo inaad ama dadku kugu hareeraysan waxa ay markaas inaad qaadato maahan waxa la iska rabaa mas'uuliyiinta dadka oo Soomaalida maanta hadda waxaan haysanaa institutions dawladeed oo jira awal waxa la diriray iyadoo institution dawladeed oo jirin waxaan ogahay xamar inta ku maqan niman odayaalo is abaabulay inay kala dhaxgalaan dabco la baabi'iyay waxaan ogahay nin la socdo la dilo dabco lagu dhagay oo la dilay taariikh badan baa taala laakiin maanta dawlad waxaan haysanaa dawladnimo iyo ciidan iyo nidaam iyo sharci hal maxay heshiiyo hal isu tanasulo qofka madaxda ah oo dadka Ilaahay madaxda uga dhigay waa inuusan dadkiisa ula dhaqmaa sida ilmaha gurigiisa soo ula dhaqmi lahaa waa inuu ula dhaqmaa waa inuu mas'uuliyadda loo garab raariciyaa waa in marasta maanta caruur qaxda iyo ilmo la dilo iyo hooyo banaanka u mushaa 33 sano kadib nagama go'do wax loo dul qaadan karo maahan wax Ilaahay raali ka yahay maahan waxaan anagu raali ka noqon karnaa maahan marka dadka ulul albaabka ah Ilaahay ulul albaabku la hadlaay dadka ulul albaabka u istaageen institutionada dhisan si wada jira loogu istaago walaadaha la baabi'iyo dadku waa dad walaalo dadku waa dad wada dhashay Soomaaliya markii hore dawladnimada cadawgeeda ka burburiyay haddana waxaana loo dhisay caqabad aad u adag oo markii federal system ka dalka loo dhisay caqabad bay ahayd anu politics kana ka hadla ma jecel laakiin waxaan goobjoog u ahaa inaan kor istaago waa jecelahay caqabad bay ahayd waxaa la hor dhaliyay system federaaleysan ayadoon hoos laga soo bilaabin Soomaaliya kalena federal system dalku ku dhaqmi kara ma ahan laakiin haba ahaato ayadoo nidaamka la soo sameeyay oo xuduud la sameeyay oo sharciyad la sameeyay oo constitution ka sameysay oo dadka la tiriyay oo wax la qaybsaday waa in la sameeyo xataa hadii laga maarmi waayo laakiin korka hablaysaga soo sii waxa la ii sheegay tuulooyinkaas baadiyaha in qolo walba dhagax ku heeraarata hay soo dhigina kaana iska leh ha ii soo dhawaan oo hadda maanta magaalada waaga hore dawladda dhulka cabiri jirtay dhulka dawladda lahayd hadda wax dawlad gacan ugu jira male qabaa'ilka meeshaas degan qabiilka ugu dhibka badan oo ugu dadilka badan ba alaabtii aruursaday oo wixii maxay xirtay marka waxaan sharci loo sameyn dadka markii la federaal qof la meesha si u xirtay waxaan u baahanahay marka dadka wacyigelin badan in loo sheeyo in dadka aan la saakayo baabi'in waana noo muuqatay markii imbigaati la joogo federal system ka la keenay dadkii Soomaalida intooda badan wax garadka waa ka soo horjeesteen laakiin waxaan ku muqooniyay dawladnimo cadawgeega watay cadawgeega maxay waana ku qasbo waana loo tiriyay anagu ma aanan tashan hadda waxaan rabaa inaan iraado war intaad hadda constitution aan tashano federaalka hadaan laga maarmi karin aan ummadana ka baabiino had boqol dhul meel baadiya ku yaal ummadana nooga baabiine hal la sameeyo system lagu kala noolaan karo marka intii dhimatayna Ilaahay u naxariisto inta dhaawacanta Allah u boogadhayo waxaan codsi iga ah inaan dhibaatadaas dalka maxayto laga ilaaliyo oo aan caruurta iyo haweenkana ka qaxin hal cunug oo caawa dhashay inuu naga dhinto ma rabo hal cunug ilmaheega isbitaal nooma diyaarin talaan ma diyaarino biyo cabaan ma diyaarino wax markay soo dhashaan inaan dilna ma u diyaarinayna ka daayay maxabada laga daayo ragayagu Ilaahay baa idin ka dhigay ulul amri الرجال قوامون على النساء وهرالان كرناهي وحي إلهي لير مديدين لكن هذا كسو بخ ويدان والمسؤولية قادم ويدان ومحيط وحي ليدين ديبي إلهي إدين ديبي إلهي هدان القرآن كوحا كوشرتو القدري سفيهيغا والغا معمولها هي حديدنا قفكي أن انت لو ديبي ونكو قويسك لوغا ديغا آبي وإلهي يري أداء دمرك الرجال قوامون على النساء وهبرتي يناك قبتي يا ولاشا اد ان oday u noqoto ugu tala galay oo aad in alla isar rabto waa lagu qabanayaa mas'uuliyadda waa laga qaaday safiih baan noqonaysa marka aan noqonayo suhafee noqdo qawaamin noqdo wadariiq toosan oo fiican oo diinta islaamka iyo culture-ka iyo nidaamka ugu horeyn lagu hogaamiyo hana dilinina daaye hooyada dilinina waalidka dilinina dadka sharci ilma dhashay dilinina na maamula inaad inta waxa adduunka nidaamka loo sameeyo nidaam inta sameeysan nidaam aan ugu maamushaan oo noogu ahaataan madax oo idinku raacna la imaado
annagana waxaan arka rabaa shacbi fiican inaan noqono inaan ilmahayagu iskool helaan inaan deganaan helno inaan nabad helno inaan dadka la mid noqonaan rabna waad arkaysaan badaha waxa ku dhacay badii doonyaha ma fiiriyo anu meelaha ku qarqa waa ka dhunta Soomaaliya u badan adduunka caalamka poverty marka laga hadlayo oo gaajada laga hadlayo oo dhibaatada laga hadlayo oo wax walba laga hadlayo annaga number 1 noqon marka naga dhiginina dawladda dadka dhexdhexan ku jirnay dawladda markii dhibaatadu dhacdo dawladda dariskayga markaan dawladda lahayn waa u gurman jirnay waxbaan u geyn jirnay sida noo dhaama waxaan rabaa marka inaan ku soo gabagabeeyo inaan u mahadnaqaan rabaa horta maxay too dadka sida joogtada ah dadka Soomaaliyeed markay dhibaatoobaan meel kasta joogaan wuxuu tara dadka ciyaarta dadka wax garadka ah dadka haweenka ragga odayaasha dhaqaatiirta culimada diinka intaba uu mahadnaqaya qof walbaana wuxuu geystay Ilaahay baa ajir iyo xasanaad ka siinaya waxaan rabaa inaan hay'adda leeyahay Hormuud Salaam Foundation aan si gaar ah ugu mahadnaqo way taakulaysaa dadka Soomaaliyeed oo meel walba jira oo jooga haday abaar u dhacdo waa noo istaagtaa haday maxay tadaad dhacaan waa noo istaagaan hadii COVID-ka ugu dambeeyay dib badan bay maxay to wala baabila hadaan ayaga aan helinayn Soomaalidu waxay mushkilad ku dhigtay ayagu isma xusaan isma indha buuxiyaan ayadoon hay'adaha kale noo soo gurman bay noo soo gurmadaan anigu mar walba marka ku daraa waxa wax qabta anigu waa jeclahay in la sheego annaga urur ahaan waa nala shaqeeyaan gabdho masaakiin ah sanad walba wax siiyaan gabdhaha ku xiran oo qaal shirah ku jira sanad walba wax bay u geeyaan ay noogu dhiibaan gabdhaha dhimirka loo istaalka xabeeb ku jiro wax bay noogu dhiibaan waxay og yihiin baahida bulshada hoose og yihiin Ilaahay wuxuu u barakeeyo Ilaahay sharta iyo shaydaanka ha ka qabto Ilaahay ajir iyo xasanaad ka siiyo qof kasta ummadan u shaqeeyana Ilaahay ajir iyo xasanaad siiyo rag iyo dumar iyo culimo iyo dhakhtar waxa uu yahay qof kasta oo dib ku hayana iimaanka Allah galiyo sanadkan iyo sanadaha ka sii dambeeyana Ilaahay nabad iyo nolol nagu gaarsiiyo bisha Ramadaan oo dhalanayso sugayno fadligeeda Ilaahay noogu dambi dhaafo shaydaanka Allah naga qabto Ilaahay dawladii ageeda ku istaagto oo shaqeyso oo dadkuna la shaqeeyo nooga dhigo dawladnimo lagama maarmo dawlad la'aan waa soo aragnay hal garab istaago dawladda hal la shaqeeyo hal la dadaalo waxaan dawladnimo ahayn oo la deeqdo male qabiil waa isku soo tijaabinay qabiil waa kala adkaan way ma kala adkaan karo anigaas dadka hadda aan isleeyahay hadii inta qabiil igu soo waran aan meel kale la fariisto dhagaxayga anu qor marida aqaan waa iska tuuriyeenaya inta la ii imaanayo marka lama kala adkee waana isku fiicannahay waxaan isku nahay Soomaalinimadan ku qurux badannahay iyada aan daba istaagno calankeedan ku qurux badannahay markii anagu aan yaryareen aniga hadda ma aqaan inta xusuusan waxa ku dhaganaan jiray boorar waxa la sameeyay weyn wankaas Soomaaliya laga soo qaaday macaash waxa uga dhaganaa maro bahalkii muxuu ahaa libaax xudunta waxa uga dhaganaa dhawaa shabeel shanba ku dhaganay shanta Soomaaliya laga mitay bahalkaas marka saasa dadka la bari jiray laba wax xorowda inta kale ku dhagantay hadda bahaladii hor inta dhameeyeen bi calooshii kale mid wadnuhu ku dhagan yahay mid beerku ku dhagan yahay mid wuxuu ku dhagan yahay waxa ka fujin lahaana waa dhalinyarada iyo dadka wax bartay inaan cadawgayga inta iska fujino Soomaali waxaan wax ku qabiil wax ku noqon mayno waligiis qabiil dawlad noqon maayo waligiis duu joog laakiin qaran baa wax lagu noqdaa Soomaali wax lagu noqdaa ra'yiga kala gadisan baa wax lagu noqdaa aniga in laga ra'yiga gadisan oo hadaan qaldana la qabto wax way dhisaysaa laakiin hadaa iraahdo qofan aniga iga amar qaadanay oo qofan waxaan rabin ma imaan karo saaxada waxba hada adigina kuma qabsoomayaan waxa la rabaa ra'yiga kala gadisan United Nations ka la dhisay dawladda kala gadisan baa ka shaqeeyay oo kala oo isku afahayn oo isku dhaqanahayn oo isku diinahayn laakiin ay ka dhaxayso nabadu ay ka dhaxayso marka waa mahadsantiin intaas oo ku soo gabagabeynaya wabillahi tawfiiq